من حملة توتوريالز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك حولين جنالكين محمد توتوريالز. سو دوادا maanta mawduuceena waxaan ama muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa 3 su'aalood oo ah ta koowaad ay tahay waqti intee leeg ayaa kaaga baxa mobilkaaga si ma ogaan kartaa. Ta labaadna ay tahay application khaas ah waqtiga kaaga baxa inta jeer aad furtay inta jeer notification ama message heshay sid ku ogaan kartaa. ta u dambeysana ay tahay sideed application khaas ah waqti ama time ugu cayimi kartaa. tusaale ahaan aad aroortii oo kale ku xidhan kartaa 1 hour ban maanta isticmaalaya applicationka inta kalena uu iska kaa xidhayo. marka soo dhawaada intaasan isla eeganay. waxaan tegaynaa dhanka settingta. marka settingta soo tagtay ka bacdi waad ka dooranaysaa halka qoran tahay digital wellbeing and parenting. halkaas ka dooranaysaa usaan kuugu soo baxo halka imika waxay nooga muuqdaa maanta inaan isticmaalay 17 minutes waa intii u horeysay imikadan inta ugu badan YouTube baan isticmaalay vocal easy vocal record WhatsApp iyo other. marka adigu wuxuu ku soo saarayaa dhaantada maalintii aad isticmaashay oo seerka lahaan oo kala ka bacdi waxaad ku dhufanaysaa halka 17 minutes ay ku qoran tahay sidan kuugu soo baxaya maalintii maanta aad inta jeer isticmaashay. halkaas sare screen time inooga muuqato waa option. screen time waa waqtigii mobilka screenkiisaan isticmaalnay notificationadii aan receive gareynay ama message wixii aan fariin helnay inta jeer aan furnay. imka saaka wax notification baan WhatsApp ka helay 4 Gmail saas oo kale. sidoo kale inta jeer aan furay waxaan furay 12 jeer WhatsApp 5 gallery 4 YouTube. screen time baan ku ceshanayna midaas waa midii koobaad oo ah waqtiga intee leeg inaga baxay. sidoo kale halkan waxaad ka ogaan kartaa maalintiina soo dhaaftay intaad isticmaashay maalintii ku sii xigtay. haddaan dib uga yar noqono oo aan tagno sidii application khaas ah waqti aan ugu xidhi lahayn waxaan ku soo laabanaynaa halkii applicationka YouTube baan tusaale dooranaynaa. applicationka YouTube waxaan tegaynaa halka app timer ay ku qoran tahay waxaan odhanaynaa imika tusaale ahaan 35 minute 45 minute haddaan ku xidhano 45 minute keliya ayaan isticmaali karnaa markay naga dhamaadaan wuu naga xidhmayaa. marka maadaama 45 minute sugi karin waxaan ka dhigaynaa 0 minute si uu markaaba isku xidho. waqad ujeedaa imika waan ka dhignay waxaan eegaynaa applicationkiisu inuu noqdo waa kan applicationkii iconkiisi bala color buu noqday. markaas aad ku dhufatay wuxuu ku soo saarayaa your YouTube time run out it will start again tomorrow. yani waqtigii aad imika isticmaaladu dhamaaday waqtiga berrito kala isticmaalaysaa. haddii aad u baahantahay inaad waqti ku dirsatid oo kale setting baa tagi wuxuu kugu soo celinayaa halkeenii oo iska delete garaynaysaa waqtigaad ku xidhay. imikaad waqti cusub ku xidhan doontaa marka 30 minute baan ku xidhnay 30 minute ka bacdi wuu naga xidhmayaa. marka waan iska delete garaynaynaa. sidaasina waa sidii waqti khaas ah loogu xidhay application. haddaba barnaamijkan markasta setting kama tegi kartid sideed uga dhigan kartaa applicationada caadiga sida WhatsApp Facebook YouTube shaashada ku yaala ama screenka. waxaad imanaysaa dhanka hoose anigu yahay show icon in the app list. halkaas marka tigta kuuma saarnaaday tig baad ka dhiganaysaa markaysaa kugu soo baxdo uu ku saaray. imka waxaan kasoo helaynaa screenkeena waa kan digital wellbeing inoo muuqdaa soo jeedinayso applicationka waa inoo muuqdaa waa marka asxaabta muhiimka intaasoo kaliya tahay in la socodsiinay waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideen. haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqatay channelkeena fadlan subscribe noo saar. sidoo kale haddaad ka heshay muuqaalkan like noo saar. wixii su'aalo ama talaa ama ku saabsan channelkana waxaad noogu reebtaa qaybta commentiga.